akhyaartayadaanu jecel guud ahaantiin marka hore waad salaamantihiin aynu ku bilownay warbixinteenna xubno ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Somaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee waddanka ka taagan iyaga oo si wada jira farta ugu fiiqay in xilligan dunuufo dhaqaale oo ay dalka ka jiraan in markaasi laga maarmaan tahay in markaasi la xalliyo khilaafka dalka ka taagan waxaana hadalladii dadweynahaasi ka mid ahaa shacabweynaha ku dhaqan caasimadda Somaliland khilaafka dalka ka taagan iyadoo maanta dunuufo dalkii ay ka jiraan ay abaara iyo sicir barri jiro maxaad halkan asxaabta qaranka Somaliland tala ahaan u soo jeedin lahayd والله خلاف كاس واحد بدن بينو كسر نقنق أنت ما قاعد قدر عبد الرحمن بالله خلاف كاين كسر نقنق هاد بو بدي تذكر واحد كنت تبع عليه واهم بقولتي أمارات شراء هاد هي سحر برا الكيبات شراء مركا وانو دعيني هرت تذكر إلى هاي نصف كراسي هي ندعيني وحين نهاي جو كل ينكو ده هردنا ثم لا نهدين تذكرنا ده ثلاثة بدي الداب كذا مدحوينها هي تبى توحد شعلا يكون الشيء إن إلى هاي أفكارسية الشروط ضمن الراعي شروط معارض كانوا واحد نقول وهو يودك هو والذين هذا معارض كتير معارض كاتين كاتين أميرية أيام الله نحي تذكر حوض قبصة وهذا هذا الكلام أكيد دقيقة ولا ما يعني شيء أقوى هنا الخلاف كذلك كتاجنا سيدي حل وجهه الكراه أركتي هذا بسم الله الرحمن الرحيم مقرون السلام يا عيدروس يوتيوب في سبا iyo dhamaanba ummadda reer Soomaaliland iyo wixii magacayga iyo muuqayga ma yaqaan bilaadanku de wuxuu ku kala baxaa waxa weeye waa dastuurka iyo xeerarka waddanku leeyahay taas oo markasta de waa la isqariinaya laakiin khilaafaadkuna uu dhacaya waa imanaya deewaana waxay ka mid tahay waxyaabaha imika la xareeyay yihiin khilaafaad dastuuriga marka waxa weeye marka qaab sharciya wixii loo eego xeerarka waddanka loo eego ayuun baa dee dawow noqon kartaa laakiin haddii waxyaabo kale ay dhex galaan oo ama sheekooyin kale la dhex geliyo ama la isku ficiltamo ama la isku xintamo ama dhibaatooyin kale iyo colaado kale iyo waxyaabo kale la dhex geliyo ummaddu ma hagaagayso waxa weeye dadku wuxuu ku kala baxaa waa qawaaniinta iyo shuruucda dalka uu markaa uu samaysan yahay marka waxa weeye dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay dastuur iyo qawaaniin la raaco haddii doorashooyinka tahay iyo haddii ay saxaafadda tahay iyo haddii caburinta tahay iyo haddii saxaafadda tahay dhammaan waxaas oo dhan laga helayaa waa dastuurka marka waxa weeye dastuurka haddii la raaco bay wax ku hagaagayaan haddii la raaci waayo waxa aniga ila tahay inaan waxba hagaagin marka waxaan ku soo dastuurkuna de waa wax Soomaali ku qoran oo la fahmayo meel walba yaalo oo looga karo maxkamadii yaalo oo maxay ahayd jaamacadii yaalo oo iskuuladii yaalo meel kasta yaalo imka waliba aad baa loo dhigayo dastuurka hay'adda dastuurku aad baa loo faafiyaa marka wuxuu ma ugu talaaha ku soo jeedin lahaa wariyaynan xaqiiqada iska indhatinoo meel kale aynaan arrimaha u jihayn iyo waxyaabo kale oo ummadana khalkhal laga dalka iyo dadkana midna aan dan u hayn waxaan idinka codsan lahaa inaad isu tanaasushaan oo waliba aad sharciga raacdaan waxaynu isku haynaana wax weyn maaha waa wax qodob dastuuri oo la wada garan karo oo ay leeyahay waxa weeye doorashadeenu mid toos ah noqonaysa dalku doorasho toos ah uu lahayn waxa uu lahaa doorashooyin sida golaha deegaanka la soo doorto baarlamaanka la soo doorto iyo madaxtooyada la soo doorto dastuurkuna wuxuu waa inuu xaqiijiyaa maxay doorashada dadban marka la leeyahay la hirgelinayo waxa weeye doorashada dadban waxay u baahan tahay xeerar iyo shuruuc iyo qawaaniin iyo nidaam loo sameeyo laakiin wax la yaab doorashada dadban toos u socota ma jirto marka doorashada dadban xeerkeeda iyo shuruucdeeda iyo nidaamkeeda hal raaco taas uma dalka iyo dadka u qurnaada karta qof kasta oo muwaadin waxa weeye waxa looga baahan yahay inuu horeysa iyo dambaysaba ku dhaqmo shuruucda dalka gabagabadii maxaad halkan xisbiyada mucaaradka tala marin lahayd qabyaaladu naafici mayso wax kale naafici maayeen xisbiyada dalka iyo ama mucaarad ha noqdaan ama muxaafid ha noqdaan waa in sharciga iyo dastuurka lagu kala baxaa waa tahay aad baa halkan soo sirtay waa tahay adoo ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan caasimadda Somaliland
sidee aad u aragtaa sidii xal loogu heli lahaa khilaafka dalka ka taagan taa iyada halkeeda madaxweynuhu baa dhamayn kara cid kale ma dhamayn karto isaga unbaa ka saari kara isaga unbaa dalka dumin kara dhisina kara taa markaa ka soo gudbo annaga waddaanu shacabka nahay doorashadan iyo doorashooyinkan iyo nimankan xisbiyada isku haysta dee nooguma jirto waxaanay dira noogu jiro oo maciishad ka hadlaya waxaa qaaligaroobiyada sixirka kacay ma jiro soo garan maysa anagu waxaan doonaynaa madaxweyne daacada kii dalka daacadu ahaan lahaa ee maciishadan sixirkeeda jibin lahaa ee dadka wuxuu qaban lahaa ee dayar teegi lahaa midnaba ma hayno isla dhinaca soo jeedintuna waa aniga waa Ciidrus Rooraaye